isku aadka wareega afraad ee Carabao Cup oo la shaaciyay iyadoo Manchester United, Liverpool iyo Arsenal kulamo adag ay heleen. Mikel Arteta oo go'aan ka gaaray Jose Mourinho iyo Thomas Partey midka ugu horeeya ee imaan doona kooxdiisa. marka hore muuqaalka intaan guda galin waxaan ku xusuusinayaa inaad subscribe saarto channelkeena doora gambaleelka si aad kaga mid noqoto saaxiibada halkan ku helo waqti waliba muuqaalada la xiriira dhanka ciyaaraha sidoo kale ha iloobin inaad like tiraado muuqaalka si uu saaxiibo badan u gaaro mahadsanida. aan ku bilaabo daawadayaal Manchester United, Liverpool iyo Arsenal ayaa dhammaantood ogaaday kooxaha ay ku wajihi doonaan wareega afraad ee Carabao Cup haddii ay guulo ku soo gaaraan kulamadooda wareega saddexaad. kooxda Ole Gunnar Solskjaer ee Red Devils ayaa ku wajihi doonta Luton wareega saddexaad Talaadada, halka Jurgen Klopp kooxdiisa Liverpool ay la ciyaari doonaan Logland Khamiista soo socota. Mikel Arteta kooxdiisa Gunners waxay wajihi doontaa tijaabada ugu weyn iyadoo la ciyaari doonta koox kale oo Premier League ka dhisan waana Leicester City kulanka wareega saddexaad ee Arbacada. haddii United horumar ay samayso waxay la ciyaari doontaa Preston ama Brighton, halka Liverpool haddii ay soo baxda ay la ciyaari doonto midkood Leicester ama Arsenal wareega afraad ee tartankan. dhinaca kalena kooxda haysata Carabao Cup ee Manchester City waxay wajihi doonaan Millwall ama Burnley haddii ay si guul leh ugula xaajoodaan natiijada kulanka Bournemouth ee wareega saddexaad. ugu dambeyn Tottenham waxay la ciyaari doontaa Chelsea haddii ay ka soo gudubto kooxda Orient iyadoo oo wiilasha Frank Lampard ay Barnsley kula ciyaari doonaan garoonka Stamford Bridge. haddaba kulamada ayaa sidaasi u dhici doona iyadoo kulanka ugu weyn uu noqon doono marka Tottenham ama Chelsea isku dhacaan ama Liverpool iyo Arsenal ay isku dhacaan wareega afraad ee Carabao Cup. yaal tababare Mikel Arteta ayaa mudnaan siin doona u dhaqaaqista kuba sameeyaha Lyon Jose Mourinho isagoo ka doorbidaya xidiga Atletico Madrid ee Thomas Partey haddii miisaaniyadiisu ay ku qasbayso inuu go'aan toos ah oo u dhaxeeya labada ciyaartooy gaaro. Gunners ayaa doonaysa in ugu yaraan laba saxiix oo dheeri ay ku darto kooxdeeda iyadoo aad loo hadalhayo arrinka Thomas Partey. ciyaaryahanka reer Ghana ciyaaryahanka qadka dhexe qandaraaskiisa Atletico Madrid waxaa lagu burburin karaa 45 milyan oo gani waxaana uu doonayaa inuu u dhaqaaqo Emirates Stadium. si kastaba ha noqotee Arteta ayaa loo sheegay inay qasab tahay in la iibiyo ciyaartooy hore inta uusan kuwa kale soo iibsanin si uu lacag u helo. Emiliano Martinez ayaa Aston Villa 20 milyan ugu biiray iyadoo oo Arsenal la siin doono lacag ay dib ugu maalgeliso kooxdeeda, laakiin Lyon waxay ku qiimaysaa Jose Mourinho qiyaastii 60 milyan wuxuuna dalban karaa mushaar dhan 100,000 oo geni isbuucii. haddii Arsenal ay isku daydo inay maalgeliso heshiisyada Mourinho iyo Partey, kooxda ayaa raadinaysa inay bixiso 130 milyan oo ay ku fadhiyaan labada ciyaartooy waxaana u dheer mushaaraadkooda. taasi maahan wax guddiga Gunners ay ku qanacsan yihiin iyadoo oo lagu jiro xilliyada dhaqaalaha haatan xadidaad ay ku jiraan sabab la xiriirta COVID-19, laakiin wargeyska The Guardian waxa uu sheegay in Arteta uu mudnaanta koobaad siin doono u dhaqaaqista Jose Mourinho haddii ay timaado kala doorashada labada laacib. Mohamed Elneny ayaa ku soo bilowday kulankii ay 3-1 kaga adkaadeen Fulham wuxuuna Arteta si xushmad leh markaas ugu muujiyay xidiga masaarida inuu muhiim u yahay kooxdiisa, taasi oo la micnaa inuu sii joogi doono waqti dheer qadka dhexe ee kooxda Arsenal. tani waxay la micno tahay in Partey hakad la gelin karo heshiiskiisa inkastoo Atletico ay si joogta uga codsanayso ciyaaryahanka inuu siixo heshiis cusub si meesha looga saaro lacagta lagu burburin karo qandaraaskiisa haatan. mid lamida muuqaalkan intaanu ku kulmi doono nabadgelyo.